عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن أو wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka subaxnimo ee Hilla Media qodobada aad ku maqli doontaan saaka waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bogaadiyay guulaha qaran ee ciyaaraha fudud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay kormeer sameeyay madaxweyne Waare oo ka digay khalalaaso ka dhaca magaalada Beledweyne Puntland oo xil u magacawday nin ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed warbixin ayaan idinkaga haynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre oo baar dheere ka dhagax dhigay macadka tababarka macallimiinta Soomaaliyeed qodobada akhbaaraadka dimadana idin haynana waxa ugu waaweyn al-shabaab oo weerar ka geystay gobolka waqooyi bare ee dalka Kenya mucaaradka Suudaan oo codsaday in ciidanka booliiska lagu wareejiyo ammaanka magaalooyinka dalkaasi muhaajiriin u dhashay Venezuela oo dooni la degtay iyo markaasi madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay howlgalka militariga Mareykanka ee ka wadaan Soomaaliya iyo dalal kale qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal markale isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka munaasabad dhiirigelin iyo maamuus ugu sameeyay orodyahanna Soomaaliyeed oo bilada ka soo hooyay tartanka heer gobol iyo heer caalami oo la qabtay bilowgii sanadkan munaasabadan ayaa abaalmarin lagu guddoonsiiyay Cabdullaahi Jaamac Maxamed Cabdisalaan Maxamed Axmed iyo Cabdi Daawud Roble oo kaalmaha hore ka galay tartanadii orodka ee Djibouti iyo kii dalalka soonka shanaad ee bariga iyo bartamaha Afrika lagu qabtay Rwanda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay dalkeena iyo dadkeena u leeyihiin guulaha noocan oo kala maadaama ay ka tarjumayaan in dalka Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray ay maanta guulo ka soo hoy karaan fagaarayaasha caalamka qof kasta oo Soomaali ah waa inuu noqdaa astaan qaran oo isku arko in uu matalayo Soomaaliya marka waa inaan ku dayano dhalinyaradaasi isxilqaamay oo dadaal badan sameeyay si ay ula tartamaan dhigooda caalamka oo soo celiyaan sharafka wanaaga iyo sumcadda dalkeena ayuu yiri madaxweynuhu dhanka kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay Ramla Cali go'aanka wadaniyada leh ee ay markaasi ku dooratay in ay ciyaaraha feerka adduunka ka dhacaya dalka Japan kaga qayb gasho magaca Soomaaliya isagoo markaasi gabdhaha isu xilqaamay in ay ka qayb galaan tartankan kubadda kolayga ee Uganda ku amaanay diyaar garowga xoogan ee ay ku jiraan sidii ay matalaad wanaagsan uga noqon lahaayeen dalka Soomaaliya munaasabadan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye agaasimaha madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiriye Xirsi guddoonka guddiga ciyaaraha fudud ee heer qaran mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ganacsato iyo hobalada markaasi waa bari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray xarunta laanta ilaalada canshuurta xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska iyo markaasi taalada dhagax tuur oo dib u dhis ballaaran uu ka socdo Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale kormeeray xarunta tababarka booliiska ee General Kahiyo taliska booliiska ay markaasi ka dhisayaan guriga loo diyaarinayo soo dhaweynta martida taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa isxilqaan ku dhisay xarumaha laanta ilaalada canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska iyo guriga martida ee General Kahiye iyadoo taliska asluubta uu gacanta ku hayo dhismaha taalada dhagax tuur oo gabagaba maraya ra'iisul wasaaraha ayaa talisyada booliiska iyo asluubta ku bogaadiyay dib u dhiska dalka iyo guud ahaan waajibaadka ka saaran ka shaqeynta sugidda amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed Mudane Xasan Cali Khayre ayaa intii uu ku jiray kormeer waxa uu xirada tababarka booliiska General Kahiye ku booqday
ciidamo loo diyaarinayay ka qayb qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda oo lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir. ayna ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliiska Soomaaliyeed. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay galinkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne ayaa si kulul looga hadlay xiisad ka taagan magaalada Beledweyne iyo dilkii taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan isagoo digniin soo saaray. madaxweyne Waare waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan ay muujin karaan cabashadooda hase yeeshee aysan suurtagal ahayn in magaalada Beledweyne la geliyo khalalaaso ama la burburiyo wadooyinka si xiisada loo sii kiciyo. waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in magaalada fooda laga sameeyo ay jiraan dad lacag ku bixinaya in khalalaaso laga wado magaalada Beledweyne isagoo sheegay inay jiraan ku tuhmayaan in ay ku lug leeyihiin waxa ka dhacay magaalada Beledweyne. ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne Waare wacad ku maray cid kasta oo ka dambeysay dilkii taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe marxuum Maxamed Macow in la marsiin doono cadaaladda isla markaana ay ka warsugayaan guddiga baaritaanada oo ay magacowday dowladda Soomaaliya. wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Cali Salaad Diiriye Faarax ayaa waxaa lagu magacaabay gudoomiyaha amniga iyo ganacsatada koonfur galbeed ee ku nool gobolkaasi Nugaal. Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed ayaa loo magacaabay xilkaas isaga oo ka shaqayn doona amniga iyo isku xirka dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan guud ahaan gobolka Nugaal Puntland. wareegtada ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in markii la arkay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa iyo baahida loo qabo in Cabdiraxmaan Mukhtaar loo magacaabo xilkaas iyadoo ganacsatada iyo bulshada ka soo jeeda koonfur galbeedna laga dalbaday inay la shaqeeyaan. wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa si rasmi ah ugu dhagax dhigay degmada Baardheere ee gobolka Gado macadka tababarka macallimiinta Soomaaliyeed. wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa safar uu ku tagay degmada Baardheere waxa uu ku weheliyay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jaabir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale. dhagax dhigan macadka laga hirgeliyay degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland ayaa soo dhaweeyay macadka tababarka ee laga dhisayo degmada Baardheere ee gobolka Gado waxa uuna sheegay in ay tahay tallaabo horey loo qaaday waxa uuna ka codsaday wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya in wasaaraddu ka caawiso dhismaha iskuulada. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa waxa uu sheegay in horumarka waxbarashada ay tahay tallaabada koobaad ee qof kasta oo Soomaali ah looga baahan yahay isla markaana macadkani laga hirgelinayo degmada Baardheere uu yahay mid ay ka soo bixi doonaan macallimiin tayo leh. wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay dhagax dhigga macadka tababarka macallimiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in bahda waxbarashada muhiimad gaar ah uu u leeyahay macadkani. wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay dugsiyada ku yaala degmada Baardheere ee gobolka Gado waxaana soo dhaweeyay ardayda dugsiyada degmadaasi Baandhe. imikana akhbaaraadka dibadda. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ah oo ciidamo ka tirsan kuwa Kenya lagula eegtay deegaan u dhow magaalada Gaarisa ee dhulka waqooyi bare ee Kenya. kolonyo ka tirsan ciidamadaasi Kenya ayaa qaraxa miinada nooca dhulka lagu aasa lagula eegtay xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanada Saddex Goos iyo Amuma oo u dhow magaalada Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya. al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxaas waxaana warar ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin internetka ay ku sheegeen
inay gubeen mid ka mid ah gawaarida ciidamada militariga Kenya isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay. Ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya ee gobolka Bari oo ku aadan khasaarihii rasmiga ahaa ee ka dhashay qaraxaas, waxaana uu ku soo aaday xilli dowladda Kenya ay xirtay xuduudaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. sidoo kale Kenya ayaa maalmo ka hor soo saartay digniin ku aadan inay jiraan weeraro ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobollo ka tirsan waqooyi bari ee Kenya ee dalkaasi Kenya. isbahaysiga xoogga mucaaradka ee dalkaasi waxay ku baaqeen in militariga laga wada saaro magaalooyinka laguna soo bedelo ciidamada booliiska si looga badbaado dilalka loo geysto dhibanayaasha. mucaaradka waxay hadalkaasi ka sheegeen mar ay la kulmeen ergeyga cusub ee Mareykanka u joogi doona Suudaan, Donald Bot, waxayna sheegeen inay taasi muhiim u tahay inay militariga laga wado daadgureeyo gudaha magaalooyinka gaar ahaan caasimadda Khartoum. Telefishinka Sky News Arabia ayaa sheegay in mucaaradka ku baaqeen sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo maxaabiista siyaasadda lana dhowro xorriyadda saxaafadda ee dalkaasi Suudaan. ugu yaraan 30 muhaajiriin ah ayaa lagu leeyahay dooni nooca dheeraysa oo la qoostay xilli ay ku sii jeedeen jasiiradda Kokararo oo ku taala koonfurta badda Karebaya oo qiyaastii 65 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan xeebaha dalkaasi Venezuela. doonidan ayaa la sheegay inuu Jimcihii ka ambabaxday tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi iyada oo ay saarnaayeen 30 ilaa 35 qof sida laga soo xigtay xubno ka tirsan qoyskooda. meydka nin xirnaa jaakada badda ayaa laga helay meel ku dhow gacanka Bulanelo sida laga soo xigtay hadal ka soo baxay ciidanka ilaalada xeebaha. waa shilkii saddexaad oo dooni ay markaasi la socdaan muhaajiriin u dhalatay dalka Venezuela ku degtay badda bishii hore, waxaana la leeyahay dad tiradoodu ay gaarayso ilaa 80 qof. laba dooni ee ka horeysay waxay ku sii jeedeen dalka jasiiradda Matanana ee markaasi lagu magacaabo Trinidad iyo Togo. ugu dambeyntiina aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaasi ayaa soo bandhigay qoraal uu madaxweyne Donald Trump ku kala diray afhayeenada aqalka wakiilada Mareykanka iyo siihayaha xilliga ee madaxa aqalka sanadka ee dalkaasi, markaasi oo kaga hadlay howlgallada ay ciidamada Mareykanka ka wadaan dalal ka tirsan caalamka. waxa uu soo hadal qaaday qaraarka awoodaha dalalka ee sharciga 93 ilaa 148 ee qaybaha kala dadaalkiisa ku aadan inuu Kongareeska ku wareejiyo arrimaha daadgureynta ciidamada Mareykanka ee loo hubeeyay dagaalka. warbixin qoraal ee madaxweyne Trump u diray madaxda sare ee Kongareeska dalkaasi waxa kale oo uu ku muujiyay in howlgalladaasi lala beegsaday ururka Daesh ee ka dagaalama Ciraaq iyo Syria oo uu xusay in markaasi horay loo dhihi jiray al-Waacida ee ku sugnaa gudaha Ciraaq. daawadayaal intaas ayaa ku soo gabagabaynaynaa warkii subaxnimo aad kala socoteen muuqaalbahayaha Hilo Media. intaan warka ku xiga ku kulmayno waa anigoo Mahad Macalin oo idin la isma dhaafno. ha ilaawinina share-ka, subscribe iyo commenting.